Malaayiin qof oo dunida daafaheeda ka kala yimid luqado kala duwan ku hadla, midab kasta iyo jinsi kastaba leh, waxay ka tageen guryahoodii, hantidoodii iyo maqaamkoodii adduunka. Waxay wada xiran yihiin hal dhar oo fudud oo caddaan ah. Ma jiro boqor ka sareeya qof caadi ah, mana jiro hodan ka fadli badan qof faqiir ah. Dhammaantooda waxay taagan yihiin hal meel oo ah buur dusheeda, saacado kooban gudaheed. Waa maxay sirta ka dambaysa kulanka ugu weyn taariikhda aadanaha? Maxay tahay sababta maalinta Carafo ay u tahay maalinka ugu miisaanka culus ee guud ahaan sanadka? Maanta waxaynu daaha ka rogaynaa mucjisada iyo sirta rabbaaniga ah ee ku qarsoon maalinta sagaalaad ee bisha Dilxija. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. كل عام وأنتم بخير. Markuu waa beriga dilaaco ee sagaalka Dilxija, jawigu wuxuu isku beddelaa mid ka duwan sidii hore. Malaayiin xujay ah ayaa bilaabayo inay ka guuraan teendhooyinkooda Mina, iyagoo u jihaysanayo dhulka barakaysan ee Carafa. In ka badan 2 milyan oo qof ayaa hal mar wada dhaqaaqayo, farsamo ahaan iyo maamul ahaan. Tani waa mid ka mid ah caqabadaha logistikada ee ugu adag caalamka. Bal qiyaas maamulka socdaalka, dad intaa la eg ee ku wada socda hal jiho, hal waqti, isla waqti gudihiis, iyadoo la hubinayo nabadgelyadooda, caafimaadkooda, cuntadooda iyo biyaha ay cabayaan. Waa nidaam mucjiso ah oo u baahan diyaarsami aad u weyn oo heer caalami ah, laga bilaabo tareenada casriga ah ee xawaaraha dheereeya ilaa kumanyaalka shaqaalaha caafimaadka iyo amniga ah ee u adeegayo. Laakiin kasakow agabka casriga ah iyo nidaamka dowladeed, waxa ugu weyn ee dhaqaajinayo dadkani maahan amar bini'aadan, waa yeermada Rabbi subxaanahu wa tacaala ee qulubtooda ku weyn. Waxay u socdaan dhanka buurta Carafo oo ah xarunta cafiska iyo naxariista. Si aan u fahanno qiimaha rasmiga ah ee maalinkan, waa inaynu dib u laabanaa in ka badan 1400 sano. Waxay ahayd sanadkii 10aad ee hijriyada Nebi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. Wuxuu taagnaa dusha sare ee buurta si uu u jeediyo khudbaddii ugu dambeysay ee taariikhda aadanaha beddeshay. Khudbaddaas ma ahin oo keliya mid qolo keliya ku kooban, balse waxay ahayd baaq caalami ah oo ku saabsan xuquuqda aadanaha. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi hadal ruxay qulubta in ka badan 140,000 oo saxaabi oo la joogay xilligaas, isagoo si gooni uga hadlay maalka shakhsiga iyo sharafta qofka. Wuxuuna halkaas ku tirtiray cunsuriyaddii iyo kala sarreyntii jaahiliyada, isagoo yidhi dadkow, rabbigiina waa mid, aabihiinana waa mid. Ma jiro carab ka fadli badan qof cajami ah, mana jiro qof cajami ah oo ka fadli badan qof carab ah. Sidoo kale qof cad kama fadli badna qof madow, qof madowna kama fadli badna qof cad, ilaa marka laga reebo cabsida Alle subxaanahu wa tacaala. Bayaankaasi wuxuu ahaa mid soo xiray marmarsiinyadii munaafiqiinta. Waxaa kale oo soo degay aayad aad u qiimo badan oo caddaynaysa dhammaystiranka diinta Islaamka. Maanta waxaan idin dhammaystiray diinta, waxaana idin taam yeelay nicmadayda, waxaana idinkaga raali noqday diinta Islaamka. Hadda waxaynu nimid gunta iyo udub-dhaxaadka maalintan. Wuquufa Carafa, istaaga Carafo, waxay bilaabataa marka qoraxdu weecato xilliga duhurka ilaa ay qoraxda ka dhacdo. Kani waa camalka ugu weyn ee xajka, sababtoo ah Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xajku waa Carafo. Bal sawiro meeshaasi maxaa ka muuqda? Boqorro, madaxweynayaal, taajiriin iyo dad danyar ah oo isgarab taagan. Ma jiro astaan muujinaysa adduunyo. Waxay ka tageen magacyadoodii iyo maqaamkoodii. Dhammaantoodii waa addoomo hortaagan rabbigii caalamka. Saacadahan dambe ee qorax dhaca ka horeeya waa waqtiga uu Alle subxaanahu wa tacaala samaa'u dunya u soo dego, soo degis isaga u habboon, isagoo ku faanayo addoommadiisa, isagoo malaa'igta ku dhahayo eega addoommadayda waxay iiga yimaadeen meelo kala fog iyagoo boor leh. Waxaan idin markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay. Waa daqiiqadaha ugu badan ee Alle subxaanahu wa tacaala uu dadka ka xoreeyo naarta. Laakiinse shaydaanku uu yahay midka ugu liita uguna carada badan, sababtoo ah wuxuu arkayaa baaxadda naxariista Alle subxaanahu wa tacaala. Marka qoraxdu dhacdo, waxaa bilaabma xujaydu inay aadaan Musdalifa. Xujaydu waxay ka tagaan Carafo
iyagoo wata qulub ka duwan kuwii ay subaxdii la yimaadeen. Waxay ka rideen dhabarkoodii culayskii dembiyada, waxayna heleen bog cusub oo nadiif ah. Maalinta Carafo ma ahan oo keliya maalin taariikhi ah ama munaasabad sanadle ah, waa cashar nool oo ina barayo midnimada aadanaha, sinaanta rasmiga ah, iyo in adduunyadu tahay mid dhammaanaysa. Waxay inoo xaqiijinaysaa in kasta oo dembiyadeenu badnaan karaan, naxariista Alle ayaa ka weyn wax kasta. Waa maalin naxsuusinaysa maalinta qiyaamo, laakiin farqiga ayaa ah in maanta albaabada towbada iyo dembi dhaafku ay furan yihiin. Waa in laga faa'iidaystaa. Mawduucan quruxda badan ee ku saabsan Carafo wuxuu ina tusayaa muhiimadda ay leedahay inaan mar walba u laabano diinteena iyo qiyamka suuban ee nolosha. Haddii uu muuqaalkani wax kugu kordhiyey, fadlan nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada. Muxuu yahay dareenkaaga ugu weyn ee ku saabsan maalinta Carafo? Ha ilaawin inaad subscribe saartid, sidoo kaleeto like-na aad saartid muuqaalka si uu u gaaro dad badan oo u ooman aqoonta iyo taariikhda Islaamka. Ilaa muuqaalka xiga, waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan. Alle subxaanahu wa tacaala ciidan ciideeda ha inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Mahadsanidin.